abdi ciise aad baa u mahadsantahay sida aad ku sheegtay qaybihii hore ee barnaamijkeennaba qarax weyn ayaa saaka ka dhacay isgoyska X control afgoye ee magaalada Muqdisho oo ah bar control oo aad u mashquul badan oo wadadan ka timaada dhinaca number 4 gaadiidka ka yimaada wadada ka timaada dhinaca jidka warshadaha ee soo martay wasaaradda gaashaandhigga wadadan ka timaada dhinacan Xoosh iyo wadadan ka timaada dhinacan afgoyeba gaadiidkii dadka ka yimaadaba meesha kulmaysa ay tahay marka xilli aroora oo dadku ay shaqo tagayeen qaarkoodna ay goobahooda waxbarasho u socdeen ayaa qaraxu meesha ka dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday meeshaasi oo isugu jiray dad arday ah kuwa xoogsato ah kuwa shaqooyinkooda u socday marka waxay ahayd masiibo marka la eego sida ay maanta wax u dhaceen iyadoo qaraxan uu geystay saameyn xoog leh oo la arkayo muuqaalka meesha qofkii taga burbur xoog leh iyo uura madow iyo gaadiid badan oo ku baaba'ay goobta marka waxaa jirta tiro badan oo dad shacab ah oo qaraxan ku geeriyooday iyo kuwa kale oo ku dhaawacmay walina waxaa la raadinayaa tiro koobka guud ee dadka waxyeeladu ay gaartay laakiin tiradu ma yara Cabdi Casiis marka la eego siday wax u dhaceen iyo goobtu siday ahayd isgoyskaas waa taqaanaa waa meelaha ugu mashquulka badan isgoysyada ku yaala gobolka Banaadir waa meeshii xamar looga sii baxayay dadka soo galayana ay soo galayeen wadada xiriirisana waxaad ogtahay inay tahay Muqdisho afgooye wado iyana muddooyin ku dambeeyay deegaanada ku hareeraysan dadku ay aad u camireen oo aad u dageen waxaa dadkii dhaawacmay la geeyay isbitaalada qaarkood waa la aqoonsan leeyahay dadka geeriyooday kuwa dhaawacmay isbitaalada la qaarkood dadkoodii ayaa baadi goobaya waxaa la dalbanayaa in dadka dhaawacyada isbitaalada ku jirto lala gaaro dhiig iyo gurmad si ay xaaladooda loola tacaalo marka warar ayaan oo ilaa hadda aan raadinayno hubintoodan waxay sheegayaan in arday saarnaa gaadiid kuwa BL ka la yiraahdo iyana meesha ay ku basbeeleen waxaan loo sheegay in jaamacadda Banaadir ardaydaasi iyo gaadiidka ay lahayd gaariga laakiin mas'uuliyiintooda aan la xiriirnay wali ma aanan helin in ay telefoonkeena ka jawaabaan si aan u helno xog ku aadan arintaasi waa sii baari doona hadii arintu ay tahay arin sax iyo hadii ay warkaas uusan wali sal lahayn waxa kale jira oo wararkan soo gaaray kamida in gaari ay saarnaayeen shaqaale Turki ah iyana la beegsada qaraxa oo ay meesha waxyeelo ka soo gaartay in wararka hore soo baxaya ay kamid yihiin goobta masiibadu ay ka dhacday suxufiyiinta way tageen meesha qaarkood hadda waa la kala eriyay oo waa loo diiday mas'uuliyiinta dawladda ayaa iyana halkaas jooga guud ahaan meeshu ma qurux badna saakay team kamida Universal oo meesha tagay waxay noo soo sheegeen in carunka dhiigga meesha yaala dadka qaar aanay suuragal u ahayn inay meesha sii joogaan marka xaaladda guud Cabdi Casiis saakay iyo X control afgooye waa sidaas wixii kolba nagu soo kordhay dib ayaan soo sheegi doonaa waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul qaraxaas gaariga wuxuu isku qarxiyey isgoyska X control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan dhimashada tirar rasmi ah inay hadda maayno dhaawacu waa 9 hadda noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doona laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn uma tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayd jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa la laayay dadkaas qabayaasha kusoo guulay dalkeennan Soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel saxma ah ama bulshadu isku badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale u laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka magagalay
dooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda waxa aan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamadii amniga ee shafka u dhigay ka badbaadiyey dagaalqabayaasha hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu kusoo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah iyo mas-uuliyiin muhiim ah oo u baabi'ay aad iyo aad uga mahadcelinaynaa waana wixii ay u qaateen buutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka Soomaaliyeed soo gaari lahayd ay iyagu xabad ku dhigaan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa uga baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo dadkii Soomaaliyeed ee halkaan uga dhiistay wiilasha naftoodurayaasha ee u taagan har iyo habeen ka shaqaynta amniga iyo iska hortagga cadowga noocaas oo kale ah waan uga mahadcelinaynaa waana garab taagannahay biidnillahi saas ayaan rabaa inaan idhaahdo halbaa sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa media